wasiiro iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Walaweyn ayaa waxa ay ka qayb galeen olole dhinaca nadaafadda oo laga fuliyay degmadaasi Walaweyn sida warkan uu noogu soo diray wariyaheena Cabdiweli Cali online. nadaafadda oo jeedkoodu yahay soo celinta bilicda deegaanka ayaa maanta si wada jir ah waxa degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose uga fuliyay mas'uuliyiin iskugu jira maamulka degmada Walaweyn kan gobolka Shabeellaha Hoose wasiiro ka tirsan xukuumadda Koonfur Galbeed iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada degmada Walaweyn. hawshan nadaafadeed ee loo gol leeyahay soo celinta bilicda barsamaadkii lagu yaqiinay magaaladan ee uu horkacayay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gaartay guud ahaan waxyaha kala gedisan degmada Walaweyn iyo fiyaalayaasha waaweyn ee magaalada waxaana qashin fara badan oo daadsanaa gudaha magaalada la iskugu geeyay goob qura halkaas oo lagu gubay. ugu horeen waxaa saxaafadda hawlahan uga warbixiyay gudoomiyaha degmada Walaweyn iyo Maryan Muqtaar oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka. ما ربنا إن نسوبينه برنامج إسحلقان كاسو أو كسوبي دون أولاد نظافات أو كقاب قادة دونان قبل كشبيلة هوسة كلا وزير دولة قبلات كونفور قلبات معمول دقمة Walaweyn البلشة جود تحان دقمة Walaweyn آدي يعني ما هتسيان سقاب قلك أو سقاب قادة. كسمين إنه أولاد نظافات يعني دوميها قبل كان وزيرka haweenka aan ku faraxsanahay in ololaha nadaafadda ay sameeyeen barnaamijkan oo la dhahay silqaan. ugu dambeyn wasiirka dekedaha Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo maamulkiisu hawshan soo qaban qaabiyay ayaa ka warbixiyay hadafka guud ee maamulka gobolka ka leeyahay soo celinta bilicda deegaanada iyo degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose. inaan idin kala soo qayb qaadano barnaamijkan isxilqaanka ah nadaafadda iyo bilicda degmadan dib loogu soo celinayo maadaama hadda uu noo bilaabanayo oo meelaha qaarna mar horeba uu ka bilowday xilli roobaadkii nadaafadana wax ugu weyn diiniyan islaamiyan la amaanay ay tahay waxaan u mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka oo runtii tira aad u badan maanta uga qayb qaadanaya barnaamijkan iyo ururka haweenka degmada Walaweyn ururka dhalinyarada iyo cid walba oo maanta u soo baxday barnaamijkan ay ugu horeeyaan ciidamada kumaandoosta Soomaaliyeed ee danab oo ayaga laftarkooda qayb ka qaadanaya ciidanka militariga guutada 7aad gudoomiyaha degmada maamulkiisna waxaan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan ee barnaamijkan ugu soo agaasimay maalmahan annaga idinka ayaan idinla joognay. barnaamijkan isxilqaanka waa barnaamij aad looga faa'iiday sababtoo ah Soomaalidu waxay tiraahdaa biyo gacmaha looga dhaqaa magaalada annaga iska leh adinka iska leh oo wada leenahay annaga inaan wax qabsano waa markaas aan la kaalmay karaa. Cabdiweli Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose Walaweyn.